warqadahaas waxaan cabashaa oo ka qabaa magacayga ayaa la been abuurtay waa la masabitay meel aana weligay lacag ka qaadan oo aana mushaar ka qaadan oo aana lacag kale ka qaadan ayay maaragtay lagu been abuurtay mataqaana waxa aniga magacayga meesha ku soo daraynaa waa cadow maaragtay aniga igu xumaynaya waxaana leeyahay xumaanta ay aniga ila doonayaan ilaahay wajigiisa ka heli doonaan xumaan ay qaadi waayaan oo foolxumaa ilaahay inuu ugu bedelo waayo wax beena oo aanan maaragtay habay yaraatee aanan raad ku lahayn ayaa inta la qabsadaa la yidhi ugaas cabdaahira mushaar ka qaatay gobolka Banaadir marka waxaa iga warantaa mushaar kama qaadan weligay kama qaadan gobol Banaadir iyo cid mushaar iga siidana anigu horena uma arag haddana rajo kama qabo marka arintaasi waa been abuur cidii aniga been abuuratayna ilaahay wajigiisaan maaragtay ilaahay baan ku dacweynaya ilaahay ayaan ku dacweynaya ugaas waxaan ku weydiiyay yaa weeye dadka qore ma la yaqaana ma aqaan anigu ma aqaan waxaan ayagoo wadaan arkay waxa qorayna ma aqaan laakiin waxa dadka qoray waa dad cadow waayo marka dadka ogahay la arag waxa ku jiray dad badan ku jiray mushaar ka qaatay arinta waxa ku jiray dad badan magacyo badan baa ka soo dhex muuqday maxaa dadka Soomaaliyeed ee akhriyay ee arkay magacaaga oo cadeyn ah oo aad siin kartaa inana waxba lacag ka helin dawladda lacag kama qaadan gobol Banaadir dadka waxay ku soo qoreen oo aad arkay gobolkii Banaadir iyo inaan lacag ka qaatay mushaar 5 kun ka qaadanayay 5 kun iyo 1 shilin midna kama qaadan weligay cadeynaan bixinaya waxaana laga heli karaa lacagaha markii lacag la bixiyo ama dad mushaar la siiyo oo ay maaragtay qasnad dawladeed ka baxay ama saxiix qofka leeyahay ama raadkii lagu bixiyay ama goortii la siiyay ama cidii siisay ayaa mataqaanaa la rabaa in la helo aniga lacag siisay oo ama hadhow keenay ama hadeer keenay habay yaraatee oday Soomaaliyeed tahay dawladan jirta iyo Soomaalida maamuladeediiba dadkii wax soo dhisay aad ka mid tahay adigu maxaa ku jaban oo ay dhibaato ay leedahay hadda lacag qaadatay hadee waxba kuma jirnayn hadda wax la ogtahay hadda qaadato waa sax wax kuma jirnaa oo ama lagu xushmeeyo ama lagu siiyo ama suun aad u qaadato moogtahay laakiin waxaana aragba oo na qaadan oo soo marin cid ugu masabitay alaaba ilaahay ka muujiyo aytooda in aniga sharafkayga iyo suxabeyga ku ciyaaraan ay ku tala galeen sharafkayga iyo suxabada Allah ka qaaday ma marka ugaas ma ciyaar ba iyo madambi iyo culeys ba in la yiraahdo ugaas Soomaaliyeedo samadoon ah oo dalkan iyo dadkii u soo adeegay ba lacag dawladii bixisay adigoo aanan inta habaar iyo jaayfan u geysan Soomaaliya inaad u duceyso amaad ka aamustid darbi layga galay weeye ma u ducaynayo mana ka aamusayo darbi layga galay weeye lacag aan qaadan oo shaqo ku lahayn oo aan soo marin oo aan raadkeedu hadda ka hor soo bixin hadda kadib la soo bixi doonin cidii ugu qortay oo ugu masabidatay waxa wanaago waxa ay idin heer maxay tahay magacaygii iyo sharafkaygii banaanka dhigeen waxa ay reerteen maxay yihiin ma dambi ba marka ma magacaaga ku lumay hadii la dawladii ugaasidii soo dhis waxbay siisay darbi layga galay waaye darbi naftayda iyo magacayga la galay waaye maxaa jira haddii lacag anigu aan qaato ma ikireen waa odayaanahay haddaan lacag qaatana waa qaataan oran lahay laakiin waxaan soo marin oo beena in la yiraahdo lacag qaatay oo mushaarka waliba la sheego lacag mushaar oo 5 kun gaari oo qaadanayay meesha ka qaadan jiray saxiixaydi iyo cidii si jirta ha keenay ugaas waxaad ii sheegtaa haddana lacag adigu qaadan oday dhaqameedyada kale kaba soo qaaday lacag qaatay ee dibkan iyo mashaa'ilkan Muqdisho aad ku nooshahay deegaankii aad matashay iyo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay wajahayaan kan lacag qaatay waaba ka aamusay idinku maxaad u aamustay haddana lacag helin waan ku iri anagu aamuska iyagu waxa la rabaa markaad hadle
iyo wixii aad ka hadle wax aad maaragtay laga fakeray cad oo calaamaysan oo la yaqaano oo sida aad uga hadle iyo sida u dhigan yihiin ay iswaafaqsan yihiin ayaa la rabaa maahana inaan anagoo kale marka hadda ma cadamiya dhibaatooyinka ka jira dalka waxa macna leh waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan mataqaanaa ama aan dacminayno ama amaanayno waxa ii sheegtaa magaaladan hadda aad joogtid ee Muqdisho dada lagu laaya qaraxya ka dhaca gobolkaaga haddaan eegno dhibaata ka jirto waad ogeedo oo wixii ka dhacayay deegaanadan ka tirsan Galgaduud oo dagaal beeleedyada ah macna ma lahan inaad ka hadasho macna leedahay ku yiri anigu wixii aan hadda ka hor ka hadlay ama aan dadaal ka sameeyay rag iyo rabba waa og yihiin haddana wixii iga aadan waa wada hawsheeda inaan kor u qayliyo iyo inaan hawsha anigu ay u aadan wixii aan qaba kala qabtana waxay ku macna badan tahay ilaa waxa aan ka hadlaa ay maaragtay banaanka yimaadaan oo aan salkooda gaaro inaan marka hore ka shaqeeyo gobolkii kama aamusin tanna kama aamusin wixii garashadayda iyo wixii dadaalkayga aniga iyo intii tala ila wadaagtaaba waa ku dhex jirnaa maxaa diidaya in la yiraahdo odayaashii Soomaalidu markii baarlamaanka la dooranayo kaliya ama dawlad goboleed la dhisayo ama arrimo siyaasadeed lagu jiro ayuun baa la arkaayo dhibka markuu taagay han lama arko ma dambi baa taa mar haddaan idin la arkin markii faa'iidada kaliya aad soo baxaysaan arrintaas oo inay annaga naqusaydo iyo inay meel kale ka jirto iyo sida wax jiraan inaad hubsataan fiican inta annaga eedana saarin sida wax jiraan inaad hubsataan fiican maxaa hubsanaynaa waxa u baahan in laga hadlo xalka in raadiya u baahan waa idinka hogaankii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ku daba faylanta haddaad aamusan tihiin markii de power sharing ama siyaasadii wax lagu qeybsanayo aad ummadii ka horeysaan maxaa diiday in idin lacag qaadateen marka lacagta ma waxaan leedahay lacag qaadataan intii miya macnaheedu hadalkaaga hadda saad u dhigay odayaasha dhaqanka gabigoodba waa la waayay muddo dheer dib kasta oo dhaca kama hadlaan hadalka meesha abu wada ka daa anigu waxa lacagan qaatay oo soo bixi doonta oo ama si ayga loo tagi doono ama mataqaana cidii isisay la gaari doono inaan eekiro oo bariyaadkeedu ugu soo baxo caqligeena mali aqoonteena mali waxa aan qabanayana waxa maaragtay aan aqaano waxa ay yihiin qabanaya waxa aan qabanayna waxa iga xuseeyo waa aqaan aniga iyo cidii ugu garashaa waxa naga xuseeyo waa aqaan oo dhaqameed wax qaatay haduu jirana anigu maahi hadii uu san jirinna anigu maahi oo dhaqameedka wax qaatay oo aan leedahay dhaqameedka wax qaatay haduu jiro anigu ka mid maahi oo lacag qaatay oo la siiyay heerkeeduna la soo gali doona hadii Allah goorma ayaa dib inta soo laabataan dhaqanka Soomaaliyeed deegaanadii iyo dalkii ay matalayeen waayahooda iyo sidii nabad ugu dhalan lahayd uga shaqeyn doonaan haddaan ku hawlanahay maxaa war oo ka haysa Galmudug iyo Jawhar ka jira haddaan ku hawlanahay hawsha socota oo ama Galmudug ka socota ama mataqaana Galguduud ka socota waa ka warhaynaa taladeedana hadda ku jirna wixii nooga aadana insha Allah ta'ala wadna wixii aan anagu ka galana waa la arki doona wixii aan wax ka qaban weynana sababta uga qaban weynaa soo bixi doonta hadii alla yiraahdo 4 sano marka sidaan aad leediin arrimaha Galmudug waa ku jirnaa way Sooma waa saasay ku dhamaatay 4 sano adeer waxa adiga la doode raalli ahow waxa adiga la doode waxaan wax cusub maahan wax taagan oo aan shakhsi qusayn caam ahaan cidda ay qusayday qof walba garashadiisa dadaalkiisa laga rabo weeye wax qof iyo labo ay go'aan waqaada karaan ama gooni u quseeyana maahan laakiin dadku way qanci lahayn mar hadii odayaasha dhaqanka Galmudug intay isaagaan yiraahdaan arrintu saan loo xalliyo hadii ku guul dareystaan bulshadii soo istaagaan oo yiraahdaan waan xallin kari weyne marka wax meel baa loo raaci lahaa hadda meel wax loo raaca ma jirto maalintii aad dhiseen Galmudug ay kugu dambeysay على كل حال سوغال ماهد سيدا هذا الكودينا وكدوان يهي مركا إن شاء الله تعالى Galmudug iyo Galguduud intii ka dhaxaysa mid walba
wixii annaga karaankeena dadaalkeeda waa wadnaa shaqooyin badan aan ka qabanay howlo badan oo dhib ka jiraan aan mataqaanaa gurmad ka samaynay haddana waxa aan dadaal samayn karno waa wadnaa haddii ilaahay idmo arrinta xiraale xagee ku dambaysaa arrinta xiraale niman walaalaa diriray iyadana mataqaanaa weli warkeedu meel ma fuulin